maxaa adigiisa feetismo gurigiina ka jira waxba wax gabadha xiriir guur ah oo idin dhex mara miyuu jiraa wax xiriir guur oo dhex mara ma jiro laakiin relationship baan dhex maray isagina wuu isku fahmay oo kala sii relationship iyo sheeko weyn dhaxaysa laakiin qabid aniga safiya aan isqabnay ma jirto a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahi kalimaatillaahi taammat min sharri war muxuu leeyahay niyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولالكين يابستوني فون الله ورهي أديجا كسر دوا برنامج كنا ماشان وحقوها هنا سفية تصمى وبرنامج كذا أيام تان براه بولشة قبصدي أو مال والبدح وريجو السوشيال ميديا تدول بنكود هاللويان ما أنت لكن وحورسي لله يشتي نينكي أيضا صفري أسيق لكن وحود تاجي هاي عربنا مركي أوجانو شاشتنا وصوصارنا مركا let's go وحقاق halkani waxaa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa sida u jeedin hadda asiga waxa waay fanaan ma ahan waa abwaan da'yar waaye malaha heesay wuxuu soo saari jiray ayada maleena qaabka isku barteen ileen fanaan iyo abwaan sembri waxa ka dhaxeeyo ogtihiin waxa fahamtay marka adiga waxa laga yaabaa meeshaas inay iska soo barteen laakiin wuxuu ninkan hadda ku sugan yahay ay dhoosaana Hargeysa marka Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawirro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedeysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen sida aad u jeedin wax walba marka la soo koobay waxa la weydiiyay qaabka isku barateen waxa niga dhaxeeyay ilaa ay heer inta isla gaartayna lagu weydiiyay ugu dambeyntii muxuu ka jawaabi doonaa muxuu dhigi doonaa marka let's find out gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugayagii tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiya waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhex bilaabatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san hore kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu sheego waan ka madax banaanahay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya relationship naga dhaxeeyay sheeko sheena gabadhayga yahay relationship iyo sheeko naga dhaxaysa laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto من الشيطان الرجيم بسم الله كلمات الله تامة من شر ورمحوا ليه نيو إلا هذا وحول تاجي هاي قبلنا أنيجا ما قبين أو تاجي لكن وحنا قد عيه وحلا ده relationship أنا قد عيه تاجي والله هو أرين كلا تاس أنا ما فيلين أنا وحسنا وحولي دونا صورة وصور دقيقة خلط بيجا شيء قبلي مسيرة يجي وحصل لي دونا إسرائيل لكن وحول تاجي هذا أسيجا وحنا قد عيه أبدا ما لهنا haddii wixii ka duwan oo la hayay jirtana cidii haysan soo marto diyaar baan marka aniga niyo haddana wuxuu taagan yahay asiga wixii sawirada iyo waxaas haye sheegayaan oo dhan ha soo bandhigaan oo dhahay runtaana tusaan oo dhahay aniga waa ka hadli doonaa marka arinta u kaadi marka waxa leedahay wax qabiso oo meesha jirta ma jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli gurgu waa wax weyn Safiina oo gabadha marka la isku sanayay wax qarsoon ma marka la isku furayay wax qarsoon ma marka hadda salahan walaashii Safiya san anu iyada ka maqlay ama kelibada daawada saxsan bayhaas marka koowaad ee ay yani arinkan la isku soo sheegay waxay sheegtay in relationship iyo qof relationship la xisaajiyo
sida hadda u jeedin asiga wuxuu taagan yahay guurka waxa waaye wax weyn waa uu taagan yahay furiinkana wax weyn uu taagan yahay yani oo la arki karo de ummadii oo dhan laakiin aniga ahaan waxa dhii lahay sanadahan waxa soo baxay guur aana la arkin oo la dhaho qurbasiro furiin waxa jira aana la arkin oo la dhaho qurbasiro hoosooseeya jirta marka labada dhinacba waxba jiro laakiin ayada 2 sano hadda la soo dhaafay hadda ninkan ay guursatay ayadana waa fanaan weyn oo caan ah maamo weyn waaye tarade ninkan guursatay aniga horta waxa is dhii lahay waa la dareemi lahay ilaa shaashadaha dhan ee soo fuul lahayd taas waa mid kale waxa is leeyahay waxa laga yaabaa inay ku guursatay mid qurbasiro ah oo ciyaalka xaafadda inay ku guursataan waa laga yaabaa oo furitaankan qurbasiro oo ku dhamaada markaas taasna waa laga yaabaa marka hada wixii fikradaada oo ka aaminsan tahay arintan ayaamahan socoto Safiyo iyo abwaankeena walaalkeena Soomaaliyeed asigana fadlan fikirkaada ka dhiibo waa muhiim sida anakan ula socono adigana wax badan ugu ogaatid Cabdi Ciise maxaa adiga Safiyo tusmo guurkiina ka jira waxba wax gabadha xiriiro guur ah oo idin dhex maray miyuu jiraa wax xiriiro guurana dhex maray ma jiro laakiin relationship baan dhex maray isagina wuu isku fahmay inuu kalsimo xarigii Safiyo tusmo ee Hargeysa maxaa ka jiray adiga waa lagu xidhaa leeyahay waa la xidhay anoo iyada u baahanaa soo ogaado CID da leeyahay كتابك قرآن ككينا بريك عودك جبريل وصوكي عيون كتابك قرآن ككينا بريك fadlan hada channelka ku cusub tahay like sub gambaleelkana taabo video kasta qeyladiisi buuqiisa rafaadkiisa rabshadiisa soo maqashid haddana waxa ku leeyahay stay safe stay clean nabad galiyo